daawadayaal waa kuma Ifraax iyo Iimaan gabdhihii lagu dilay magaalada Muqdisho waxay ahaayeen laba gabdhood oo walaalo ah Ifraax oo jirtay 18 sano iyo Iimaan oo 15 sano jir ahayd waxay deganaayeen degmada Hodan gaar ahaan xaafadda African Village ee magaalada Muqdisho hal iskuul ay wada dhigan jireen waana iskuulka SYL iftiin dugsi sare ay dhiganaysay halka Iimaan ayadana ay dhiganaysay dugsi hoose qoyskooda wuxuu ka koobnaay 3 gabdhood oo ayaga ay ku jiraan iyo wiil yar iyo hooyadood aabaha dhalay Ifraax iyo Iimaan ayaa la dilay wuxuuna geeriyooday sanado ka hor daawadayaal biitoos maxay u tageen 3 gabdhood ee walaalaha ah ayaa sagoodinaya gabar saaxiibadood ah waxayna rabeen inay sawiro ku soo wada galaan maqaayadda daawadayaal koorme ayay baxeen afurka kadib ayagoo isla markaas gaaray maqaayadda waxay dalbadeen cabitaano fudud ayagoo durba bilaabay in ay waqti la qaataan saaxiibadood oo safar ahayd daawadayaal kadib maxaa dhacay 3 gabdhood iyo saaxiibadood oo sawiro iska qaadayay ayaa hal mar qarax weyn waxa uu ka dhacay iridda hore ee Pizza House wixii markaas dhacay lama sheegi karo laakiin dhibaatada dhacday waxaa ku naf waayeen Ifraax iyo Iimaan waxaana dhaawac uu soo gaaray gabadha kale ee reerka u weyneed iyo saaxiibadood daawadayaal Ifraax iyo Iimaan maxay u geeriyoodeen hooyo Saare Macalin oo ah maamada reerka ayaa xaqiijisay in la doogtay oo xabado ay jirkooda ku yaaleen Ifraax iyo Iimaan laakiin waxaa ciil ah in gabdhaha markii la doogtay ee ahayd waqti hore ee habeennimadii laakiin dhiigbax iyo badbaadin la'aan ayay u dhinteen oo saakay ayaa meydkooda laga soo saaray gudaha Pizza House dhakhtarka ayaa sheegay in gabdhaha la badbaadin karay laakiin 12 saac oo xiriir ah ayuu dhaawacooda yaalay maqaayadda ugu dambeyn waa ay geeriyoodeen daawadayaal waa sidee dareenka maamadii weysay hal mar labadeeda gabdhood bijilcan uu alla siiyey ayaa dareemi kara xanuunka ay waqtigan dareemayso hooyo Saare Macalin oo labadeeda gabdhood iftiin iyo Iimaan ee hal mar ka wada geeriyoodeen reerka hadda waxaa dhaawac ah gabadhii ugu weyneed 2 gabdhood waa ay geeriyoodeen aabe mar hore ayuu asagana geeriyooday wiilka waa 12 jir maamada waa bukaan socod xaalka reerka waa mid daran shala tuhurkii ayaa labadan gabdhood ee sawirka ka muuqda Ifraax iyo Iimaan lagu aasay qabuuraha Barakaad ee duleedka magaalada Muqdisho aniga ma aqaansaan ahay maskaxda ayaan ka waalanayaa xalay ayagoo nabad qabo oo faraxsan ayay iga tageen saakana ayagoo meyd ah ayaa la ii keenay Ramadaan waa 10kii dambe aan u wada duceyno labadan gabdhood iyo intii kale ay ku geeriyootay weerarkii Pizza House allaha u naxariista Ifraax iyo Iimaan iyo walaalaha kale ee naga geeriyooday